lix arrimood intaynan imaanin acmaasha u degdega riwaayad kale waxay leedahay geerida u degdega lix arrimood intaysan idinku imaanin bimaana waxa way lixdaasi haday yimaadaan ruuxii wanaagga sameeyay iyo wanaagii halis buu galay acmaashii la sameeyay khayrkii cidhiidhi badan buu ruuxii galaya waxa iimaanaya waxyaalo fara badan oo ka hor istaagaya waxyaalo fara badan baa jiidanaya wanaagii ka hor istaagaya oo ka celinaya intaynan imaanin geeri dalbada ama geeri u degdega ama amalka saalixa u degdega labada riwaayadaba waa jiraan lixda arrimood maxay yihiin waa lix arrimood oo nabigu ummadiisa uga baqay sallallahu alayhi wasallam waa lix arrimood oo ku tusaya markay dhacaan qiyaamadu inay soo dhowdo adduunku gabagabaye waa lix arrimood oo tilmaamaya markay dhacaan in zamanku fasaaday oo xaalad halis lagu jiro sidaas daraadeed in loo degdego wixii wanaag iyo khayr ah xaaladaasi markay timaado midda koobaad nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dadka wax magaradka ah oo madax noqda xilkii muslimiinta oo wax magarad la wareegaan dad aqli yar oo garasho yar oo garaad yar oo aan xikmad lahayn diin iyada meel iska dhige ayaa xilka muslimiinta la wareegi doona aad u fudud oo fudayd badan ku jiro aqligooduna kala dhimaye waa tan hadda jirta waqti hore soo bilaabatay laakiin maalin kasta oo qiyaamadu soo dhawaato arintaasi waa sii adkaanaysa xilka muslimiintuna wuxuu u sii guurayaa ninba ninku ka sii liito sida qaalibka wasaas laana sida nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wasalaam alayhi zaman ma jiro illa midka ka dambeeya ka shar badan zaman ma jiro illa ka dambeeya ka dhibaato badan marka wax way xilkii muslimiinta oo sufaha iyo wax magarad gacanta u galay ruuxan aqli lahayn hadii xilka lagu dhiibo oo dawladii uu ku qabto awoodda qabsado muxuu sameeynaya inuu wax burburiyo oo dadka isku laayo inuu umada meel xun u jiheediyo inuu khayraadkeeda iyo masaalixdeeda ku ciyaaro inuu muxuu ahaay gaalo u gacan geliyo inuu adduunkeeda iyo aakhiradeedaba ku ciyaaro nabigeenu salawaatu rabbi wasalaam alayhi taas uu horeysiyay laana wax weeye madaxdu hadii ilaahay ummad u khayr la rabo wanaag la rabo madaxdu u hagaajiya madaxdu haday hagaagtana adoomada iyo dhulkuba waa hagaagaan hadii madaxdu halowdo oo ka kharibanta mujtamacaasi halaag baa la maagay وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هذا ضربت أمد ميلي كسعته مدح ذا لفيريا مدح مركا لغوغو صلي الدون كاغا هل اسمو كتشرا آخرون إن رعلا دعكرت النبي صلى الله عليه وسلم توات المامي إمارة السفهاء وحين كو إيمانيسا حلك مسلمين تا لو ديبو لو غعنغليا أما قبصده عدي استاهل شيئان هاين لأن حلك مسلمين تا لغما قاتو دلاشا لغما قاتو قرابنما لغما قاتو waxaa lagu qaataa ama lagu qabtaa dadnimo ruuxa diintiisa akhlaaqdiisa aqligiisa aqoontiisa xikmadiisa amaanadiisa ayaa lagu qabtaa markay soo noqoto anagu naga dhashay haduu naga dhashayna waa inuu xilka qabto hatta ninka ugu xun baa noqday markay adduunyo fasaaday imaaratu sufaha qodobka labaad ee nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ka dayriyay waxa weeye wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam kathratu shurat qoliyaha madaxda caawiya ee u kaalmeeya ee dulmiga ugu kaalmeeya badanaya u fiirsan ninku markuu kursiga ku fadhiyo xilka hayo dadka intooda badanba kaalmay u yihiin dulmiga ku garab taagan yahay imise hay-adood buu samaystay oo dulmiga ku garab istaagay xagan waa booliis xagan waa sirdoon xagan waa ciidan xagan waa hay-ado kala duwan kulli waxay ku garab taagan yihiin kursigiisaas xataa haddii dalka dhan iyo kursigiisu isqabto kursigiisa lala jiraa isaga loo yahay kaalmo loo yahay waa midda labaad ee sida culimadu xadiidka ku fasirayaan waxa badanaya dulmiga faafayo adduunka wada gaarayo meel walba galaya markaas dadkii oo dulmi sheeganaya oo soo cararay oo garsoor raadinaya ayaa iridaha maxkamadaha iyo dawladda buuxinaya
kuwii marka garab taagnaa madaxda baa aad u badanaya kuwaas caawinaya ayaa badanaya maxay yiri dulmigii baabat nabigeennuna waa sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dulmigaasi inuu sii siyaadi doono ilaa adduunka oo dhan dulmigu qabsado allana aakhiru zamaanka tabaaraka wa tacaala uu soo saaro nin nebi maxamed haybtiisa lahoo ku abtirsada oo hal waqti aad u kooban ilaahay sabab uga dhigi doono tabaaraka wa tacaala inuu adduunka dulmiga ka rogo oo cadaalad ku soo celiyo ilaa laga gaadhayo adduunka dulmigaasi maxaa yeelay asagoo dhan intiisa badan wuxuu u gacan galay addoommada ilaahay kuwii ugu dulmi badnaa oo gaalaha oo ilaahay xaqiisa dulmiyey inta kaleetana waa tabac sida loo badan yahay marka waxa weeye acwaan u kaalmeeya dulmiga qodobka saddexaad ee nabigeenu ka deeriyay sallallahu alayhi wasallam wax weeye iimaan doona xukunka iyo xilka oo la kala iibsado say ku dhacaysaa waa laaluushka waa fasaadka kii kursiga rabay maanta ninkii jaga rabaay lacag la'aan ma helayo ama kursi sare ha noqdo ama mid hoose ha noqdo garsoorihii maxkamadda fadhiyay ninkii lacag leh buu u goynayaa garta u goynayaa miskiinkii waxba ma heli karo laakiin ninka gacantiiyo jeebka ka hadli karaa mar walba iska leh garta adduunkaasaan joognaa ninkii looyarka ahaa ama wakiilkii xaqa u doodi lahaa asaguna wuxuu ku leeyahay anigaa dhicinaya waxaad rabteen lacagta isii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa sii sheegay rabbigii baana u sheegay oo adduunka waxaa imaan doonaya wixii tegayba ka warhaya allah baa u warramay sidaasuuna nebiguna ugu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh siduu u sheegay bayna wax u dhacayaan xukunkoo la kala iibsado war xilka lama kala gato laaluushna laguma bixiyo ruuxa akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo ammaanadiisa iyo caqligiisa iyo kartidiisa lagu bixiyaa ninkii lacag ku qaatayna waa daalim ilaahay xarigiisa ka furtay ninka bixiyay ee siiyeyna waa daalim ugu kaalmeeyay dulmiga iyo xadgudubka masaalixda muslimiinta iyo xilkooda in la iibsado xataa meelaha ugu hooseeya haddaad rabto lacag bixiyaa bixinaya isagii baa bixinaya shacabkii baa qaadanaya baarlamaankii baa qaadanaya xubnihii baa qaadanaya laanna wax weeyaan wixii waa fasaadeen meeshii loogu talagalay waa ka baxeen xugum la iibsan doono buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh qodobka afraad ee nabigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wax weeye dhiigga oo la fududaysan doono daadinta dhiiggii ilaahay xarimay oo aad u cusleeyey oo adkeeyey oo macsuum ka ahaa oo ama iimaan macsuum ku ah ama ammaan macsuum ku ah waa muslim wax lagu dilo muusan gelin waa gaal ballan lagula jiro lagu wada nool yahay wada noolaansho ay ka dhaxaysa muslimiinta oo dhiiggiisu usan bannaanayn dadka noocaasa layntooda ayaa badan doonta buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa dhiigga si fudud loo daadiyo bal adduunka maanta waxa ka socda fiiriya xagga fiiri oo xagga fiiri oo xagga maxaa loo dilayaa war dadka maxaa loo laynayaa war maxaa la isu dilayaa war dagaaladan ahliga maxay u socdaan war dhiigga daadanaya muxuu ku salaysay ka dilaya ma oga wuxuu u dilayo kala dilayana wax loo dilay ma oga sida nabigeenu warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa uu dhiiggii halkaa ilaahay geeyey ee wax ilaahay xarimo tawxiidka marka shirkiga marka laga yimaado wax ilaahay xaraameeyo dhiig baa ugu weyn uguna halisan maanta wuxuu noqday kaneeca aadba juujisood gacanta ku qabato waxaa ka fudud dhiig macsuum oo la daadiyo adduunku halkaasuu marayaa lagana badbaadin qabiil baa lagu daadin ree hebel baa lagu daadin gobol hebel baa la difaaci baa lagu daadin diin magaceed baa lagu daadin dhiiggii wuxuu noqday wax aad u sahlan oo biyo la kabanaya ka sahlan nebi maxamed baa sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu istighfaafan bidam dhiigoo la fududaysto xaaladda taagan waa qodobka xigee u dambeeya nabigeenu tilmaamay waxa weeye sal alla alay wasalam waa dad jiil iyo generation iyo dad imaan doona oo qur'aanka beddelkii macnihiisa ay raadin lahaayeen qur'aanka alfaadiisa keliya danaynaya kuwa waxay samaysanayaan qur'aanka ugu heesa sida xadiid ku imaanay wey yughanniyahum bilqur'aan qur'aanka akhrintiisuu ugu heesaya qur'aanka laguma heesee waxa laga wadaa xadiidku macnihiisu yahay bimacnaa waxa weeyaan sawdkii
iyo laxnigii heesaha ayuu qur'aanka gelinayaa markaasuu xuruuftii ka saarayaa meeshoodii calashaani maqsuudkiisu waa inuu codka qurxiyo oo dadka soo jiito la soo raaco waa dadka meesha joogiya mujtamaca waqtiga la nool laftoodu fikraday la qabaan isaga keligii ma ah kan quraanka akhrinaya keligii ma ah hadday damcaan in la tujiyo buu nabiga sallallahu alayhi wasallam midkay hormarinayaan tuji leeyihiin oo salaada ku hormarinayaan waa midka يعني وحوي عدكيسا آدو قرحينيا هابا نقضوا بنبي صلى الله عليه وسلم ميدك فقهي يفاهم كقرآنك أقول لي تابع هذا اسمه ويدينا يا والروح لقرآنك ما قرنيا مقصود كدتك قرآنك أخرنا ينوحوا النقض عدك قرحي معناها فهم معه مجتمعي لنا ولا نوحوا النقض عد قرحسن إلا الرادية معنيه معها إلى هنا وحو أسود دكي سان خطبتي هورك هذا الله وحو أسود دكي معناها إلا فهمه والألفاظ كمهم سن الألفاظ هو مهم لكن القرآن الكريم كنا وهذا مهم لكن الألفاظ هي معناها أي سي مهم سن إلا فهم القرآن الكريم لأن الألفاظ دي معاني دا أي حنبار سن طيبة مقصود كنولش سامين كله مركب وحوي حالة ده هذا شرطه مركب أفير ستو ضد كأني القرآن كبرتي دلني يردي القرآن كينو برات بقول كي بس سجاشن يشن كبدان القرآن كمعلي يسمى يقانان ما نضنين يان ما بدنين يان وحينه كم قيهنا مرة ميس وهنين قارئ أو صوت قرحسن صوت كقرحسن يدتك وكنت تشين يلقوه هرمرين يو محافيش اللقوه كرامين يو إنت سومو ذي إن مقصود كي قرآن كبيه هاي هل كاسونا كو إكستو دن كلام ماله مجتمعين وحد أركيس حفلة ووين waxaad arkaysaa dad aad loo raacsan yahay oo quraanka markay akhrinayaan alxaanti heesaha ku akhrinaya oo la weyneynayo maxaa lagu weyneynaya kaliya tawxiid quruxsan warsaas ma hatta haduusan waxba ka fahmaynin ama fahamka diinta iyo quraanku ku yariya kaasa la hormarinaya abu nabiga sallallahu alayhi wasallam waa tan maanta jirta iyadana waa xaaladda hadda taagan war aaway quraanka macnihiisi xilligii saxaabadii salafka ridwaanullaahi calayhim dadka qur'aanka xifdisan way yaraayeen laakiin fahamka qur'aanka ay ka sinaayeen ha kala badnaadeen laakiin qadar muayyan oo qur'aanka fahamkiisa ay ka sinaayeen baa jira qur'aanka fahamkiisa asal ah macnaho la gaadha asal ah in markii la akhrinayso aad fahantaa asal ah saas daraadeed ba atharka waxa ku yimid abdullah al-mas'ud iyo qeyrkii waqtigii nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi quraanka waxay uga qaadan jireen 10 aayadood baan qaadan jirnay bay dheh 10 ka aayadood baa waxaan baran jirnay akhrintooda macnahooda waa ku dhaqmi jirnay marka kadib baan 10 kala qaadan jirnay sidoo kale macnahooda ku dhaqankooda akhrintooda haddana 10 kala qaadan jirnay sidaas waxaan ku baranay bay dheen quraanka akhriskiisii arabayna ahayn asalahan fahamkiisii iyo fiqhigii quraanka ku jiray iyo dhaqankiisii baan hal mar wada qaadanay dheh sidaas daradeed baa culimada qaar kamida culimadii sunnadu waxay leeyihiin bidcooyinka gadaal ka yimid ummadda gadaal kaga soo biiray waxa kamida in quraanka lafdigiisa bas xoog la saaro oo macnihii quraanka aan la danaynin waa bidc gadaal ka yimid oo khilaafsan hadigi nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadii salafka waana tan maanta aan la noolahay way walaw muslimiintu maanta ay macnaha quraanka macnihiisa xoog saari lahaayeen noloshooda isbedel badan baa ka muuqan lahayd lixdaasi khayrka iyo taacada uga degdega buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi geerida u degdegana waa riwaayad macnaha waxa laga wadaa intaasi markay dhacaan xaaladahaasi markay yimaadaan halis baad ku jirtaan akhradini ba halis ku jirta diintini ba akhra halis ku jirta amalki saalix ee janna aad ku gali lahaydeen ba halis ku jira taxadar ziyada dadaal ziyada ya isilaalin ziyada جهد زيادة إن الله تمادان بلدونا أنتم بواينا هيستا زمن كستا أو دبك يمادية وقتك إن قدم بينا وكسي داري دونتا بعيل النبي جينا وحوري صلوات ربي والسلام عليه زمن متشر إلا ميتك قدم بيا كشر بدن حالة واسيها الله sidaas daraadeed khayrka ha loo degdego wanaagana ha loo degdego xaalad culus baynu maraynaa oo fitan iyo imtixaanaad iyo waxba ina haysta masaa'ib bayna haysatay khayrka ha lagu cararo xagga allana ha loo cararo sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radallahu ma'an as-sahabati wat tabi'in
وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.